asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu soo dhawaada mar kale guys ayoba inaan wanaagsantihiin dhammaantiin waxay sideenay Wednesday update-ka iyadoo aan ku update garin jirnay waxyaalaha isbuuca iska bedelay ama waxyaalaha iska bedelay videoga ahaa videogan ku horreeyay ee weekly forecast-ga ahaa iyo waxa ka dhici doona saddex maalin oo suuqa ka harta guys okay isbuucan ayoba inuu idin ahaa isbuuc wanaagsan sidoo kale aad ka faa'iidaysteen lacagtii ay three of the week oo samaysay wax crazy ah insha allah waa isla fiirin doonaa markii aan tagno okay sida noo caadada ahayd insha allah aan ku bilowno DXY guys okay DXY maxaa ka rajeynaa iyada DXY sida hortiina ka muuqato waxaa kusoo dhaqaaqday impulse correction nagasta impulse keenta okay fadlan haddii aad daawan videoga ahaa what's our strategy oo yaala youtube-keena fadlan soo daawo si aad noo fahantid okay haddii aan kugu celiyo mar kastoo suuqu dhaqaaqo wuxuu soo sameeyaa three wave corrective wuu dhaqaaqaa three wave corrective kula soo sameeya wuu sii socdaa three wave corrective soo sameeya ilaa uu ka tagaayo halkii uu suuqa dhammaan lahaa okay halkii uu suuqa dhammaan lahaa dadka qaar waxay dhahaan ama oraa waxaa jirta la dhaho trend is your friend laakiin trend is your friend si u fahansantiin ma ah trend is your friend wuu yahay laakiin waa goorme markaa ogtahay halka ku dhammaanaya guys okay markaa iska dhihin trend is your friend guys okay haddaba aan soconno DXY waxay kusoo dhaqaaqay three wave corrective kusoo dhaqaaqday laba possible buu jirtaa guys markaa kala taagan yahay okay labada possible oo jirta waxa waaye DXY maadaama intan impulse ku haysatay saddex dhaqaaqna kusoo dhaqaaqday all the way insha allah inay high jabiso waa big possible oo jirta waa okay laakiin wax walba waxay ku xiran yihiin reactionka meelaha ay ka samayso reactionka ay meelahan ka samayso okay haddii qaab sidaana meelahan ka samayso waqti ay ku qaadato DXY uma socoto inay high jabiso okay xaggee u socotaa insha allah big dollar way keeni doontaa okay marka DXY labadaas possible buu ka jirta okay ani ahaan tee qaadan lahaa ani aan wax rajeynaa insha allah lacagtan insha allah inay seel soo aado marka inta meeshan waqti ku qaadato okay aan ku xijino lacagtan waxay tahay USD JPY USD JPY oo isbuuc dhow inaan sheegnay inay gaarayso 155 insha allah weli maysa gaarin sidoo kale lacagaha yeenka beri waxa kasoo bixi doona news weyn aa kasoo bixi doona insha allah newska isha ku haya marka lacagtan waxaan u rajeynaynaa insha allah inay gaarto nambarkii ahaa oo calaamadeyn ustaad sahal u calaamadeey ee ahaa 155 okay then marka 155 tagto insha allah waxaan u rajeynaynaa newska beri soo bixi doona oo yeenka soo baxaya insha allah waxaan u rajeynaynaa inuu yeenka insha allah inay lacagahan hoos soo aadaan oo big darab soo siiyaan ama in barska kusoo dhaqaaqaan oo meelaha ay imaadaan insha allah aan rajeynayna dan insha allah waa isla arki doona waxay sameeyaan inay correction sameeyaan inay sii socdaan insha allah waxaa ku ogaan doontaa xiisada oo hadda uu soo galay ustaad sahal insha allah hamoogaan marka okay markii USD waxaa u rajeynaa insha allah inay xaggaan tagto dan news beri soo bixi doona lacagta insha allah inuu soo aadiyo yeenka insha allah hoos inuu soo aadiyo insha allah aa u rajeynaa okay lacagtan way xigta waa USD card okay USD card maxaa kusoo dhaqaaqday inta ka muuqata USD card waxa kusoo qaab import kusoo dhaqaaqday insha allah waxaa u rajeynaa qaab corrective insha allah in meelahan ku qaadato dan insha allah rajeynaa naga istiwiig insha allah inay soo daadato okay laakiin hadda inta isbuuc ka dhan insha allah waxaan rajeynaa lacagtan insha allah inay u socoto qaab correction inay ku aado buy okay lacagtan way xigta waa euro USD ayada waxa kusoo dhaqaaqday ayada waxa kusoo dhaqaaqday three wave corrective kusoo dhaqaaqday insha allah waxaan rajeynaa ayada lafteeda insha allah waqti ku qaadato dan insha allah inay sii baxdo aan u rajeynaa laakiin wax walba waa ka suurtagal okay inay jibisi loogaan ayadana waa big possible jirta insha allah guys okay laakiin haddii wax walba ku xiran yihiin qaabka kusoo dhaqaaqaan ilaa ay gaarto meeshan correction ku qaadato insha allah waxaan rajeynaa ilaa jimcada laga gaaro insha allah lacagtan mar kale insha allah in abaado lacagtan way xigta waa JBUSD oo ayadan ahayd good trade sababta ustaadku wuxuu sheegay video ka horreeyay insha allah inay gaari doonto 1.22 insha allah hadda waa aragtaa 1.22 way taabatay dan way ka kacda okay hadda maxaa ka suurtagala marka hadda waxa ka suurtagala insha allah hadda maadaama imbers kusoo dhaqaaday correct insha allah meesha ku qaadato insha allah mar kale insha allah lacagta inay kor aado ilaa laga gaarsiinayo nambarkan oo ah 1.25500 insha allah nambarkaas insha allah isha lagu haayo JBUSD insha allah correction soo geli doontaa mar kale insha allah markaas taaban doontaa dan insha allah waa arki doonaa waxay ka samayso before inta jimin lowgan insha allah lowgan insha allah rajeynaa inay ilaaliso qaab corrective inta kusoo aado dan insha allah waxaan rajeynaa lacagta inay taabato 1.25500 insha allah okay lacagtan way xigta waa AUD USD ayadana perfect qaab wax kusoo dhaqaaday in barse kusoo dhaqaaqday okay hadda waxaan u rajeynaynaa ayada lafteeda qaab corrective kusoo laabato ilaa laga keenayo aagan oo ah 0.64400 insha allah dan insha allah waxaan rajeynaa lacagtan inay inta ka samayso in barsigan kiis kale insha allah inay inta ka samayso u rajeynaa insha allah okay lacagta ku xigta waa NZD ayadana good wax kusoo dhaqaaqday qaab in barse kusoo dhaqaaqday insha allah waxaan u rajeynaa ay lafteeda intay correction meelaha ku qaadato insha allah inay sii socoto insha allah sii socoshada insha allah waxay noqon doontaa isbuuca dambe mise waxay noqon doontaa inta isbuucan ka dhiman insha allah labadaba insha allah way noqon kartaa maadaama xoogaa news ay jiraan bisha ay dhammaad tahay marka waxaan ka rajeynaa insha allah in USD beri ama maanta ilaa beri insha allah meelaha intay correction ku qaadato insha allah inay sii socoto aan u rajeynaa insha allah okay aan u rajeynaynaa marka dollar oo dhan DXY laba scenario ka possible waaye inay DXY big drop hoos u aado lacagaha kalena sida euro USD AUD USD JBUSD insha allah iyana inay kor aadaan waa sida hadda 80 boqolkiiba ilaa 70 boqolkiiba insha allah saas suuqu sheegaya
laakiin insha allah waa isla arki doonaa wuxuu suuqu sameeyo. Lacagtan ugu xigta waa US oil. US oil ayada maasha allah kale good trade ahayd waa xasuusataan Wednesday update-kii kan ka horreeyay insha allah waxaa ku sheegay lacagtan insha new inay kiri doonto dan insha allah inay soo laaban doonto. Hadda maasha allah way soo laabatay ayadan waxaan u rajaynaynaa ayaad in barta kusoo dhaqaaday qaab correct insha allah inay ka gasho mar kale insha allah inay korsi aad rajaynaynaa new hagaas ma qaadaysaa possible way qaadi kartaa laakiin hadda wax ka rajaynaynaa hadda insha allah waxaan rajaynaa inay sidaan samayso dan insha allah waa isla arki doonaa waxay samayso. Okay, lacagtan waxay noo ahayd marka gold aan u tagno gold waxaana three of the week noo ahaa guys sida aad xasuustaan hamar bal aan idiin shido videoga dan insha allah waa isla falaqeyno kadib waxaan sheegi doona insha allah anaga si levelka insha allah sheegi doona. Okay, قول waxaan ka rajeynaynaa inuusan xayigaas jibinin insha allah waxaan rajeynayaa inuusan xayigaas jibinin iskaan way jibin kartaa guys laakiin waxaan rajeynayaa inay xayigaas ilaaliso lacagta and then hadda one more low keento levelkan hoose oo looga inay jibiso inay tagto 23,000 inay tagtaa rajeynaa insha allah. okay guys sidaa ka aragtaan halkaan maraysa isbuucii dhaweyd insha allah waxaa dhan lacagtan new logan ay jibi doontaa waxay tegi doontaa 23. Okay, 23 waxa xagee si inta ka arag 23 inta ku taala oo ah meesha hadda ay ka kacday 23 marka imaad maxaa ka dareemaysaa lacagtan inay kor ka aaday hadda maxaa ka possible marka insha allah inay xaggaas tagto insha allah ay tagto numberka insha allah inay tagto then waxaan rajaynaa insha allah mar kale insha allah lacagtan inay soo daadato insha allah gool in this week insha allah waxaan rajaynaynaa in xaggaas marka la tagto then insha allah inay soo daadato. Okay, marka haddaad trade-kan lacag ka samaysid good perfect haddii ay trade kaaga furin insha allah sii hayso ilaa insha allah ilaa ay new loga insha allah ay ka jimiso insha allah. Marka intaas waxaa noogu dhan marka guys watch list noogu dhan sidoo kale waxaa kusoo biiri kartaa groupka telegramka oo aan soo dhigno sida app ka badan kuwan watch listigan inta ka dhiman insha allah waxaa soo dhignaa mar walba ama ardada kula update gareyna ama dhalinyarta ku jirta telegram channelka insha allah halkaas kusoo biira linkiga waxaa soo dhigi doonaa descriptionka hoosaa soo dhigi doonaa ama qaybta commentiga soo dhigi doonaa insha allah halkaas kusoo biira oo sida inta ka arkaysaan waa halkan waan kusoo bandhigna markaa teeyada inta ka maqan sida hadda JBAUD kale kuma jirto hadda listing hadda aan sheegnay kuma jirto NZD USD AUD USD waxna ku jiraan USD card oo ku jirta waa arkaysaa waxaan tiriya arday la wadaagna insha allah marka groupka insha allah moogaan insha allah kusoo bir waxaa ku jirta arday moodan ka badan 5,300 ku dhawaad arday ku jirto marka xaggaan wax walba kusoo bandhignaa insha allah kusoo bir xaggaas insha allah waxaan kaga tagayaa isbuuc wanaagsan guys iyo tiriyada qurux badan guul baan idin rajeynayaa bye bye guys.